Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is your English teacher Khalid Yonis Osman. Welcome to lesson 4. Kusodo ashirki afarad. Waxarajina inaad casharadii kan ku horeeyay lesson 1, lesson 2 iyo lesson 3 aad soo daawatay. Haddii aanad soo daawan oo arday cusub tahay, fadlan subscribe to channelka inoo subscribe garee. Casharadii hore soo daawo, kuwana la soco, asxaabtaana la wadaag. In today's lesson cashirka maanta waxaynu dhigan doonaa qof aad kala maqnaydeen in muddaa oo aad kulanteen. Okay? Cabdi waxa muddaad yar kala maqnaydeen, ismanad arag waad kulanteen, salaantii caadiga ahayd baad salaami. Marka aad salaanta kadib intan aan hadda kuu dhigayo ayaad ku dhihi kartaa mid ka mida. Okay? Inta lama wada isticmaalo, laakiin mid ka mida ayaad isticmaalay. Kii kuu fudud adaa ka dooran doona insha Allah. waxaad qofka ku leedahay, it's nice to see you again. Inta aan ku arkay mar labaad aad baan ugu farxay. It's wonderful to see you again. Nice to baynu wonderful ku bedelnay halkan. It's wonderful to see you again. It's delightful to see you again. It's marvelous to see you again. It's exciting to see you again. It's good to see you again. It's good to meet you again. maxaynu bedelnay nicety waxaan ku bedelnay wonderful kii waxaan ku bedelnay delightful waxaan ku bedelnay marvelous waxaan ku bedelnay exciting waxaan ku bedelnay good. Intuba waa isku macna Soomaali marka la macnayo. Intuba waxay noqonayaan aragga aan ku arkay saaxiibow waan ku farxay. It means I'm happy to see you again. mar labaad inaan ku arkay waan ku farxay. It's good to see you again. Araggaaga mar labaad ku arkay waan ku farxay. It's good to meet you again. It's good to talk to you again. It's good to be with you again. It's good to have a conversation. Marka intaa aynu hadda wada eegnay intee isku macnaa nice, wonderful, delightful, marvelous. Intaasi waa isku wada macno. Hal macno ayuu fadhiyaan. Ka aad rabto ee kuu fudud ayaad ka dooran, ka ayaanad adigu si gaara u isticmaali doontaa. waxa kale oo haddana aad dhihi kartaa, it's good to hear from you again. It's good to see you again today. It's good to see you after such a long time. It's nice to see you too. waa jawaabtii tani haddaba aad ugu jawaabaysay. imka qofba kaa soo horbaxay, muddaad kala maqnaydeen, waad salaantay, waxaa ku tiri assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu caasha. markaasay ku tiri wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. adna waxaad ku leedahay it's nice to see you again. aragga aan ku arkay mar labaad waan ku farxay. jawaabteedu maxay noqonaysaa? isla iyadii unbay kugu soo celin kartaa. waxay ku dhihi kartaa it's nice to see you again too. aragga aan ku arkay mar labaad ana soo kale waan ugu farxay. ama waxay ku dhihi kartaa thank you sida cashirkii hore aynu soo dhiganay oo kale. ama waxay ku dhihi kartaa the same to you ana soo kale. Okay? marka it's marvelous to see you too baad dhihi kartaa. It's good to see you too baad dhihi kartaa. It's delightful to see you too baad dhihi kartaa. It's wonderful to see you too. adoo hadalkii lagu idhi unbaad too u raacin kartaa. inta asxaabi masala fahanay waa sax. haddii videogu aan kugu yar degdegayo waxaad samayn waad ku yar noqon dhowr jeer baad ku ceshan waana commentna waad isoo dhigi doontaa wixii u baahan in la bedelo insha Allah. videoga qaybta ku xiga daawo. qaybta ku xigana waxaynu kaga hadli doonaa insha Allah qofka muddo marka aad kala maqnaydeen waxa aad ku leedahay. Okay? muddo kasii dheer marka aad kala maqnaatiin qofka waxaad ku leedahay baynu ku eegi doonaa videogana si daawo insha Allah. Thank you very much.